daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar oo idinka diyaarinay carwo ganacsiyada qayb ka ah shirka caalamiga ee wasaaradda arrimaha dibadda u soo agaasintay ee muddada 2 cisho ka socday hotel Grand Haddi oo shirkadaha dalka gudihiisa ka howlgala ee muwaadiniintu leeyihiin ku soo bandhigi lahaayeen sidii dunida loo tusi lahaa maalgelin ay sameeyeen dhinacyada kala duwan ee wax soo saarka shirkan oo lagaga hadlayay guulihii ay gaadhay Somaliland iyo caqabadaha ka hor yimid sidii looga gudbi lahaa carwadan oo ku lamaarnay shirka caalamiga waxay dunida tustay sida Somaliland ay horumarka uga samaysay dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha iyo adeegyada kale bulshada ee daawashaha boon daawadayaal wali waxaan ku jirnaa barnaamijkan ka diyaarinaynay madasha lagu talagalay in dadka muwaadiniinta reer Somaliland ay ku soo bandhigaan wax soo saarka gudaha iyo waxyaabaha ay ka keenaan dalka dibadiisa dadkan iskama iman laakiin dad baa ka shaqeynayay waa laga shaqeeyay waxa qayb ka yahay carwadani ama bandhigani aynu ku soo bandhigayno guulaha horumarka Somaliland shirka caalamiga ah ee wasaaradda arrimaha dibadda qabatay ee maanta iyo bariba ka socda hotelkan aynu joognay Grand Haddi qaybtan gaar ahaan carwadan waxaan ugu talagalnay maadaama oo shirkani aynu kaga hadlayno Somaliland maxaa u qabsoomay muddadaas caqabadaha jirana sidee baynu uga hortagaynaa oo lagu soo marti qaaday ufuud badan oo caalami ah oo Afrika iyo America iyo Europe iyo wadamo badan ka yimiday dad badan oo Somaliland hore saaxiib u lahaa iyo dad badan oo iyaguna khabiiro diblomaasiyiin iyo siyaasiyiin iyo dhinacyo kala duwan aan ku soo marti qaadnay waxaan u aragnay muhiim in aynu sidoo kale soo bandhigno horumarkeena private sector-ka ama waaxda gaarka ah ee Somaliland ayadu lafteedu horumar weyn ay ku talaabsatay muddada 27 sano ahayd taasoo qayb weyn ka ah shaqo abuurka koboca dhaqaale iyo dakhliga dawladda Jamhuuriyadda Somaliland lafteedaba oo waayo dhamaantood waa dad cashuur bixiyaala marka hay'adda qurba joog ahaan waxaan ugu xil saarnay wasaaradda qabanqaabada qabashada xafladan bandhigan oo ay ka soo qayb galeen warshado badan oo kamida warshadaha wax soo saarka kala duwan ee dalka sidoo kale aan lagu soo bandhigay khayraadka dabiiciga ah ee dalkeenu hodanka ka yahay oo macdanta ay kamid tahay waad aragteen baan u maleynayaa ganacsatada yaryar ee laftooda iyaguna wax soo saarka xagga dhaqanka iyo sameeya wadankeenu waxyaabaha uu hodanka ku yahay ayaa iyaguna ka soo qayb galay sidoo kale waxaan ku marti qaadnay iyaguna rool ku leh shirkadaha waaweyn iyaguna shaqo abuurka ka geystay laakiin adeegyada bulshada ee asaasiga ah qabta sida shirkadaha isgaarsiinta baananka ayaa iyaguna ka soo qayb galay hase yeeshee kalluumaysigii iyo macdantii iyo saliidii oo xaggii beeraha waxyaabihii laga sameeyay ah ilaa hargihii xoolaha milixdii dhammaan wadankeenu waxyaabaha uu hodanka ku yahay oo dhan ee aynu leenahay ee aan ku faanayno ayaa lagu soo bandhigay halkan marka fursad bay u ahayd sidoo kale dadweynaha ganacsatada ah inay isu yimaadaan isbartaan kala faa'iideystaan waxa kaloo runtii farxad weyn noo ah anaga xafiis ahaan in dadka halkan ka soo qayb galay badankoodu ay ganacsiyo yihiin ay maalgeliyeen ama ay leeyihiin dad qurba joog ah oo reer Somaliland ah oo ka soo noqday wadamo kala duwan kuwaasoo iyaguna waa aaga kala duwan oo wax soo saarka warshadaha iyo ganacsiyada kale adeega iyo ganacsiga guudba maal gashaday waxaan u mahad celinaynaa dhammaan ganacsiyadaas ka soo qayb galay ee soo ajiibay martiqaadkii in ay muujiyaan maanta carwadani ma aha mid wax lagu kala iibsanayo oo inta badan carwooyinka ganacsiga wax lagu kala iibsado ma aha laakiin haddana dadkani waxay u soo dadaaleen aynu muujinno horumarkeena wax soo saarkeena khayraadkeena iyo ganacsigeena aynu taageerno shirka caalamiga ee Somaliland wufuudii caalamiga ahayd ayaa imika halkan iman doonta oo wasiirku hogaaminayo runtii aad bay u jeclaayeen madaxweynaha laftiisu inuu yimaado hase yeeshee wasiirka arrimaha dibadda iyo waftiyadii yimiday oo dhan ayaa dhammaantood soo mari doona oo eegi doona oo aynu u sharaxaynaa marka runtii iyagana waa arrin fursad aad iyo aad muhiim ugu ah waxaan u mahad celinaynaa dhammaantood ka soo qayb galayaasha waxa kaloo u mahad celinayaa rugta ganacsiga Somaliland waxaan u mahad celinayaa wasaaradda macdanta iyo tamarta Somaliland oo si weyn uga soo qayb gashay oo filayo aad arkaysaan inay ka dhex muuqato carwadan maanta guulaha horumarka Somaliland ee hotelka Grand Haddi ka socota iyaga soo abaabulay dhammaan shirkadaha ka soo qayb galay ee macdanta ee kala duwan oo runtii waan ku ixtiraamay maadaama ay wasaaradda macdanta tahay inay iyagu aqoon u leeyihiin ay kala garanayaan shirkadihii oo mahad celinaya dhammaan dadka qurba jooga ah iyo dadka kale qaran jooga ah daawadayaal mid ka mid ah howlwadeennada qabanqaabada udubdhaxaadka u ahaa in halkan lagu soo bandhigo shirkadaha ganacsiga dalka
wax soo saar kala duwan gudaha iyo dibadda ka keena marka hore magaciisa doonaan weydiiyo magaca magacaygu Axmed Yuusuf Dirir waxaan ahay madaxa registration-ka ee hay'adda qurbajooga wasaaradda arrimaha dibadda madaxa diiwaangelinta ee hay'adda qurbajooga ee wasaaradda arrimaha dibadda sidaad arkaysaan halkan waxaa ka jira carwo ganacsiyeed weyn oo barbar socoto shir weynaha wasaaradda arrimaha dibadda ee guulaha Soomaaliland waxaan ka shaqeynaynaa 72 saacadood ugu dambeeyay inay sidan ugu quruxda badan u dhacdo madaxweynuhu ka soo qayb galo waxay carwooyinka kale kaga duwan tahay halkan waxa yaala product Soomaaliland lagu sameeyay made in Soomaaliland wixii Soomaaliland ay gaar u lahayd waxa kamid ah shirkadda saabuunta Ilays waxa kamid ah shirkadda kabaha booliska ee sugan waxa kamid ah macdantii dalka waxa kamid ah hargihii iyo saamihii iyo kalluunkii macdantani waxa halkan yaala waxay u badan yihiin wixii dalka lagu sameeyay ilaa hadda si fiican bay u socotaa mardhow waxaa soo geli doona wasiirka arrimaha dibadda iyo wufuudi oo xadhigga ka jari doona ilaa berri 5 galabnimo ay xidhmi doontaa insha Allah sidaan ugu talagalnay iyo si ka fiicanba way u socotaa waxaan si kale u mahad celinayaa howlwadeennada TV-ga qaranka Xasan iyo kameramaankiisa gudoomiyaha hay'adda qurbajooga agaasimaha wasiirka arrimaha dibadda iyo madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii maamuus weyn u muujiyay dadka ganacsatada maanta waa noo farxad ina markii ugu horeysay aad aragtaan shacabka Soomaaliland wasaaradii oo soo bandhigaysa khayraadka dalka ku duugan waxay wasaaraddu hiyahooba u ag taagan tahay shacabka Soomaaliland siday macluumaad tafaasiil ah uga siin lahayd khayraadka dalka ku duugan haduu yahay macdan iyo haduu yahay batroolba hadda waxaad ogeydeen in la soo afjaray wajiyadii kala duwanaaya shidaalka haddana waxaan bilaabaynaa insha Allah taala inaan dalka u soo bandhigno khayraadkeena dalka ku duugan ee macdanaha macdantu waa laba nooc la yiraahdo industrial oo warshadaha loo isticmaalo laga sameeyo baabuurta diyaaradaha maraakiibta waa biraha adag waa macdanaha culus ee darkasan macdanaha qaarkoodna waxa weeye waa chemistoniska waa kuwa loo isticmaalo quruxda iyo adeega decorationka marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inay wasaaraddu ka qayb gashay oo soo bandhigtay xuduudeeda iyadoo la kaashanaysa khayraadka dhulkeega ku duugan oo khayraadkaasi laga keenay laga bilaabo laas qoray ilaa iyo waxa weeyaan lughaya inta u dhaxaysa meel walba waxa ku jira waxaan kala diyaarinay leaflet ama waxa weeyaan buug ku cadeynaya khayraadka ku jira dhulkeenu nuucu yahay buugan waxa kaaga muuqda inuu ku qoran yahay dhagaxda iyo macdanaha dalkeena ku jira waxa weeyaan mar walba waxa kugu duwan waa macdanihi kala duwanaa ee hore u soo sheegnay oo industrial iyo chemistoniska buugan kale wuxuu ku diyaarinayaa isna waa isla kaasoo la soo koobay oo ku diyaarinayo oo ku qadayo waxa weeyaan macdanta ku duugan iyo levelka ay tahay level A level B level C iyo waliba isticmaalkayga wuxuu sidoo kale kugu taala leaflet lagu diyaariyay macdanta iyo wasaaradda qaybaha u qaybsantahay wasaaradda guud ahaan waxay u qaybsan tahay 3 waaxood waaxda waxa weeyaan batroolka waaxda macdanta iyo waaxda tamarta iyo waaxda qorsheynta haddii laga tago maamulka marka waxaan leenahay Soomaaliland waxa ku duugan dalkeena khayraad badan mar labaad mar saddexaad waxaan leenahay dalka khayraad baa ku duugan dawladana waxay inii leedahay had iyo jeer shacabka inaan soo dhaweeyno hadda waxaad ogtihiin inaan furnay shir wadareed aan kaga hadlayno laba arrimood arinta koobaad waxa weeyaan in la ogaado dalka waxa ku jira arinta labaadna inagoo iskaashanayna dadka deegaanka iyo dadkan ganacsadayaasha ama local scale mining loo yaqaano inaan u fududeynay liisamada hadda halka waxa kugu muuqda liisanadii oo 3 nooca waad arkaysaan liisanka koobaad waxa weeyaan waa dealer waa inaad iibsato oo xafiis furato liisanka labaadna waa inaad qodo oo iibsato liinka saddexaadna waa internationally kombaniyada waaweyn saddexda liisan ninka shacabka ee dadweynaha Soomaaliland way u furan tahay waana soo dhaweynaynaa waana ka fududeynaa waxaan kaloon u fududeynaynaa in aan royalty ama cashuurtii loo qiimeynayo oo qadar fudud loo eegayo habka iyo macdanta noocay tahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay maanta iyo bariba waxaan nii diyaarnahay inaan soo bandhigno inagana tusno inina fududeyno khayraadka dalka nuucu yahay waxaan ku soo dhigay horta ugu horeyn waxaan kan ka salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale oo aan ka salaamayaa wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta wasiir jaamac iyo agaasimaha guud waxaan leeyahay mudan madaxweyne wayna soo gaadhay in aad dhiirigelintii aad doonayay aad dhiirigelisay khayraadka dalkeena ku jira in la soo saaro maanta wada aragtaa oo waxa weeyaan inaan wixii la soo saaray oo ay wasaaraddu soo saartay oo ay soo bandhigtay ka injineer ahaan boqolkiiba waan ku faraxsanahay in waxa weeyaan wixii aan soo saarnay aanu hindisnay aanu soo sahaminay in aan maanta aan soo bandhigno aad baan ugu faraxsanahay waxa kaloo farxad weyn noo ah in ay dadkii wixii ay fahmayaan sanadba sanadka ka sii dambaysa
bilba bisha ka sii dambaysa ay dadka waxa weeyaan aqoon fiican ay u soo yeelanayaan macdanta ay ka ganacsanayaan si hadda idin muuqata oo waxa weeyaan dadkan waa dad dhilarisa waxay qaateen lisamay leeyihiin waxay ka ganacsadeen macdanta buurahay fagtaan waxa weeyaan waxa buuraha ugu jira ayay soo saartaan iyaga saansada ka bacdi magaalada keenan liisan bay qaataan way ka ganacsadaan wax kale ay u soo shaqo tagaan ma jirto nolol maalmoodkooda waxa weeyaan waxay ka soo saartaan macdanta ka soo saartaan boqolkiiba boqol waxa weeyaan waxaan ku dhiirigelinayaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan ku dhiirigelinayaa dalkeena nimca taala waxa weeyaan waxaad arkaysaan waa khayraadkeennii qabyaalada ha laga baxo jaahilnimada ha laga baxo hala dareemo waxa weeyaan inaan wax soo saaran karno inaan wax qaban karno inaan waxa weeyaan ha ku daydaan baan leenahay waxaan maanta aan soo dhignay dadku waxa weeyaan ha ku daydaan oo ha isku dayaan in ay waxa weeyaan khayraadka dhulkooda ku duugan in ay la soo baxaan boqolkiiba boqol waan dhiirigelinaynaa way jiraan dad badan oo waxa weeye meelo badan aan sahaminay aanu intaan tusnay dhagaxan waxa la yiraahdaa jeer baa la yiraahdaa waxa weeyaan ka injineer ahaan wasaaradda waxa weeye injineerada wasaaradda ayaa saamiyo aanu ka mid ahay waxa weeyaan waan tusnay buurta intaan fuulnay ayaan u soo qaadnay waxaan ku nidhi dhagaxaas ayaa ku jira buurta faa'iido ayuu idin leeyahay waxa weeyaan la soo baxa ilaa iyo maanta ilaa iyo 3 sano ka hor waxa weeyaan waxay la soo baxayeen qof walba intuu soo qaado ayaa miisaanka loo saaraya waa laga iibsanayaa hadhow waxa ka iibsanaya mid isagu dilaal oo kale hadhow markay tan iibsado markay tan noqoto ayaa isagana laga sii iibsanaya waxa weeyaan lacagtiisa ayaa lagu siinaya buurta lagu siinaya marka waxa farxad noo ah inaan dadkii aan tusnay in buurtooda ay wax ku jiraan ay ka soo saari karaan waxa weeyaan ilaa iyo maanta buurta aan tilmaamnay aan ku tusnay aan ku nidhi dhagaxa soo qaata buurta fuulo dhagax ilaa maanta maalinta tusnay ilaa iyo maanta oo kala soo degaan waxa ku jira ilaa 3,000 oo qof ayaa waxa weeyaan meesha dalbuurta u shaqo taga waxaan leenahay waxaan u soo jeedinaynaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland in ay ka faa'iideystaan oo waxa weeye qabyaalada iska dhaafaan oo waxa weeyaan jaahilnimada iyo waxa weeye qaadka iyo bulwada iyo waxaan fadhiga iska dhaafaan ay ka faa'iideystaan nimcada Ilaahayna siiyay waxa weeye aad aragtaan ee leedii soo bandhigay oo buuraheena ku jirta waxa weeyaan boqolkiiba boqol aad baad u mahadsantihiin waan idin soo dhaweynayaa si gaar ah waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bixi Cabdi wasiirka wasaaradda macdanta tamarta iyo macdanta mudane jaamac iyaga ismaha gudba waxaanu ka helnay hadaan nahay injineerada geologiyiinta hadaan nahay waxaanu ka helnay waxa weeyaan garab baanu ka helnay waxaanu ka helnay dhiirigelin baanu ka helnay mudane madaxweyne wasiirku uu soo gaarsiiyay fariinta ahaad waxa weeyaan soo saare macdanta waanu soo saarnaa insha Allah bilmillahi kariim waxa weeyaan waan intaas aad u mahadsan way wadaadaan badan bulshada u sharax wadada aad ku bilowday iyo horumarka aad ka samaysay waxaan ku bilaabay markii hore waxaan ka bilownay 91 baan siimoodi ka bilownay ilaa imikana sidii waan wadnaa alxamdulillaah nin wax ka helay Soomaaliland macdan iyo dahaba alxamdulillaah ninka ugu horeeyana waxaan leeyahay war dalkaaga lagu dhargaa dhoofna uma tagin meel lamaan marin habeenna kamaan maqnaan ragaysiyo booromiyo awdal iyo burxun baan joogay ma dhaafin inta Soomaaliland marka waxaan leeyahay ninkii dalkiisa aamina sidaas oo kale u sameeyay duubay baan ka furay makaanu duubay baan ka furay qadarna waan ku leeyahay oo iyadana imika waan wadnaa inaan abaabulo garanaysa hoosel baan duubay ka furnay halkan waan ka furi doonaa insha Allah dadkana waxaan leeyahay wartana laga dhargay carrada aan soo eegno iyo nabadda maxaa leeyahay madaxweynaha maalgelinta lagu sameeyo macdanta wadanka macdanta wadanka maalgelinta lagu sameeyo leenaanu dadkana hal la caawiyo liisamadan ayaan lagu dhibin isagoo liisaga bixinaya muwaadinku ayaa la 6 bilood sug liisaga yara marka hadda shaqadii maxaa la qabanba 6 bilood ka bacdi maxaad qabsanba waxaan leenahay wax walba in la fududeeyaan doonina dawladdii wax soo saarka nahay madaxweynuhu marka ururku wuxuu ka kooban yahay shirkado ka diiwaan gashan wasaaradda macdanta iyo tamarta marka laga maarmaan ayay noqotay inaannu shirkadii isku nimaadno si aanu cudud midaysan u yeelanno wax soo saarka aan iskula kaashanno iskula garabsanno wasaaradduna ay nagu garab taagnaato sidaasi isku mid ay noogu caawiso ururku wuu cusub yahay dhowaan ayaannu aasaasnay kadib markii aan dhibaatooyin badan aanu dareennay in maaragtay filiqsanaan badan dadkii ku hawlanaa macdanta ay filiqsanaan badan iyo beelaha badani jirto baa waxaannu isla garannay inaannu samayno ururkan midaynaya bahweynta ku hawlan macdanta sidaa ayaannu ku aasaasnay insha Allah marka waxaan rajaynaynaa inaynu horumar fiican samayno xagga dawladdana aanu ka heli doonno insha Allah garab qabasho wanaagsan
waxaa kolley dee wadeecooyin badan ayaa jira oo xagga qalabka iyo aqoonta labadaba ah waxaanu rajaynaynaa insha allah mar haddii aan isku nimi oo aan ururkan aasaasnay inaannu taa ka bixi doonno oo dee marka muruqa iyo maalka iyo maskaxdaba la isu geeyo markaa ayuunbaa wax la taransan karaa taas ayuunbaana qof walba udana oo kii taalka darraa iyo kii waxogaaga haystay markaannu isu tagno wax fiican ayaa insha allah soo bixi doona oo aannu rajaynaynaa inaannu qabanno dawladduna ay nagu taageeri doonto kolley intaan baan kusoo goobi lahaa warkayga wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aan horta shirkada kompanigan u sameynaa ama warshaddan u sameynaa waxa weeyaan laba ujeedo kow waxaa ka mid ah waxa weeyaan maadaama mar waddankeena dhammaantii ay wax la soo degno inaanu noqonno inaanu kari karno inaanu inagu wax soo saaran karno haynoo dambaysaba inaanu dhoofinaaye marka waxaan culays ka saarnay maadaama waxa muxuu ahaa daruurigii xitaa in la soo degno inaanu dadkii mataqaanaa jeebkooda yaraa amba hayntooda yarayd aan ugu talagalno inaanu cunto tayo leh oo nafaqaysan oo jaban kari karayaan inaan mataqaanaa u soo saarro alxamdulillahi rabbil caalamiin waxaan u soo saarro cuntooyin kala duwan maanta waxa weeyaan qof muxuu ahaa qoys kastoo Somaliland oo gaar ahaan Hargeysa ku nool intooda badan cuntadeedu way ku quraacdaan waayo budaan soo saaraa tayo leh inaguna dal xubin dhaqan u leenahay qorshahayaga fog waxa ku jira in qoys kastoo Soomaaliyeed oo geeska Afrika ku nool cuntadeeda laga helo marka ujeedadeeduna waxa weeyaan inaanu cuntadii waddanka la soo waariday inaanu joojino cuntadii waddankan soo saarro isla mar ahaantaana inaanu waddankii dhaqaalihi ku celino ujeedada waxa kale oo muhiimsan waxa weeyaan waxaanu shaqaalisanaa ardaydii jaamacadaha ka soo baxday arday badan baa internship nagula shaqaysa marka dambe ka baxaana waanu shaqaalaysiinaa way nagu yeerin dad amba ma taqaanaa qof expert aanu fillo oo ma taqaanaa aqoon guud aan soo mooyaane dhalinyartii magaalada iyo dhalinyartii waddanka ayaan focus ka saaraynaanu shaqaalaysiino marka alxamdulillah rabbil caalamiin maanta shaqaale badan oo qaar internship iyo qaar shaqaale permanent ahba leh ayaa noo jooga marka laga eegayo dalku ama duni dal wuxuu ka hormaraya bulsho inay wax soo saarka xagga cuntada horumar ka sameeyaan iduguna cuntadii oo idinka halkan taallo iyadoo kala duwan noocyada kala duwan marka laga yimaado ina warshadaysaan ama dib u riiqdaan beero bulshada ku dhiiri gelinaysaan idinku aleedin ma jira company ahaan alxamdulillah rabbil caalamiin companygu guud ahaan beero gaar uu leeyahay ma jirto laakiin shakhsiyaadka companyga kamid ah ayaa leh waxa wada hadal noo socda wasaaradda beeraha si ma taqaanaa mashruucii beeraha ay magaranaysaa intay u beeraan annagu aanu ka iibsano xitaa bilaash ma aha waxaan soo propose garaynay wasiirka beeraha in ma taqaanaa la soo bandhigo ma taqaanaa inuu la beero mashruucii beeraha annagu aanu ka iibsano waayo dhammaan beeraha Somaliland dhan waliba beeraha galbeedka ee dalagan soo saara waan la wada xiriirnaa waan noo calaamadsan yihiin waanu ka iibsanaa haba yaraatay way nagu yar yihiin macnaha wax soo saarkii alaabtii soo gaaysa amba dalagii soo gaay uu nagu yar yahay marka haddii la kordhiyo waxaan anagu ballan qaadaynaa in wixii laga soo saaray dalagaas ee hadhuudhka iyo arabikhida iyo heedyale in anagu aanu guud ahaan la wareegaynaba magaranaysa marka sida awadeed waxaan sameeynaa inaan dadka ku dhiirigelinay wax beertaan inaan u garantii garayno ma taqaanaa inaan u iibsan doono inaan marka qaar kood carboon si baxno nidhaano lacagta noocaas naga hayo beertii beero oo anaga naga soo iibi ka waran meesha ka iibin lahayd saasaan sameeynaa marka horta hadafka u horeeyay waxa weeye saan u soo galino suuqa saliidii waan iyadoo qaynaanu keenaa beeraleydii iyo maxay tahay hay'adaha iyo wasaaradda ku shaqada beerahana waxaan samaynaynaa inaan wada shaqayno oo sidii hadhowto loo heli lahaa siilkii oo beeralayda loo qaybiyo beeralayda la tababaro iyo sidii loo jaro la baro marka inaan hadhowtona wixii noqdaan local oo miro ka soo baxa waddanka warshad safaysa iyo wixii dhan isku dhan oo mar qura wada noqoto wax Somaliland ka soo baxay qorshiinu muxuu yahay waddanku baahi saliid uu qabaa saliidda dibadda ka timaada qorshiinu ma yahay in laga maarmo saliidda dibadda oo dalka ku filaata iminka waqti kale xadirka ma ku filaan mayno laakiin marka beeralayda iyo aan isla eegno iyo mustaqbalka watan kulaha hadafkaygu waxa weeye in laga maarmo saliidda dibadda oo saliid caafimaad qabta aan halkan ku sameeyno fil mustaqbal ayaa qorshahayaga dhaxiya saliidda imika soo saartaan suuqa ma keen ما waxaan bilaabaynaa bisha aakhirkeeda la bilaabayaa October qorshiinu ma yahay in laga maarmo khudradan kala duwan ee dibadda ka imanaysa ama wadamada kale dibadda inooga imanaysa in laga maarmo qorshahayaga fogaan imika ku tala jirnaa waxa weeye inaanu ka maarno Itoobiya haday tahay Yemen baa laga keenaa Masar baa laga keenaa
khudrad lagu soo waxeeyey oo la soo bacrimiyey wax halis lagu soo waxeeyey oo 2 toddobaad ku bislaanaysa annagu waxaan beernaa oon haynaa wax original oo sidii loogu talagalay u baxaya waxa weeye nin kastoo gacantii Ilaahay wadanka ku dhacday bakay oo kale waad ogeydeen beerihii masiibo xag alla ka timid ayaa ku dhacday alxamdulillah rabbil caalamiin haddana iminku uun baan dib u kabasho aanu samaynaynaa inaanu ka soo kabanno wixii Ilaahay xaqiisa ka yimiday aan ka baxno aanan dadaalo waxaan sa jecel lahay in khudradda Soomaaliland baki ka soo baxda iyo gobolada kale ee Soomaaliland inaanu kaga maarano kuwa inooga yimiday dibadaha sidii doono u socdo wax doono la xanuun badan laga qaadi karo ayaanu jecel lahay waxaan ku tala jirnaa iminka haddii Rabbi ka dhigo markaan dib u soo kabanno inaan samaysano cooperation weyn oo maxay ahaydeen baki area ah si aan u soo saarno khudrad tayo leh tiradeedu badan tahay ku filan dhammaan gobolada Soomaaliland iyo dibadda isku jirta waxaanu horumarinay oo horumar ku sameynay intii Soomaaliland jirtay alaabtii localka ahayd furniture-kii localka lagu sameeyay fadhiyada kamid yihiin quality heer sare aanu sameynay waxaan ugu talagalnay inuu dalku yeesho wax soo saar dalka gudihiisa ah oo markay noqoto furniture-kii marka maanta waxaanu soo bandhignay fadhiyada saad u arkaysaan local iyo dibadda labaduba isku jiraan alaab local aad u tayo sareysan keenay waxaanu doonaynaa dadka inaanu tusno alaabta localka in la aamino oo alaabta dalka gudaheeda laga shaqeeyo dadku ay iibsadaan oo iyada ka jeclaadaan alaabta dibadda laga keenay marka qorshaha mid ugu jirtaa in laga maarmo alaabta dibadda ka imanayso idinku farsameysaan alaab la mid ah oo gudaha ku farsameysaan walaal imka saad arkaysaan imka fadhiyada soo jeedo kale dalka gudihiisa aan ku sameynay waxaan ugu talagalnay sanadka 2020 wixii ka dambeeyana in totally laga maarmo wax alaali wixii dibadda laga keenay oo alaab aad quality-keedu u sareeyo aadna u qurux badan dalka gudihiisa laga helo ayaan ugu talagalnay marka labadaas sano gudaheed waxaan ugu talagalnay in laga maarmo alaabta dibadda laga keenay daawadayaal hadda waxaan joognaa xarunta madasha lagu talagalay lagu soo bandhigo wax soo saarka shirkadaha wadaniga ee dalka laga leeyahay waxa kamid ah shirkadda Telesom Yaasiin Mooga halkan garabkayga taagan waxaan doonayaa inuu xog kooban iga siiyo waxyaabaha ay rabaan in shirkan caalamiga wasaaradda arrimaha dibadda qabanayso shirkadahan waxay ku soo bandhigeen hoolkan aan ku jirno ama madashan aan ku jirno Yaasiin hay'ad war waad maansantahay qabam maanta waxaan ku amrinaynaa wasaaradda arrimaha dibadda iyo xukuumaddaba qabaqaabinta iyo doorka ay maanta shirkan daaran yahay oo ah shir muhiim ah oo loo baahnaa isla markaana lagu qiimeynayo 7 sano ka bacd Soomaaliland halkii gaadhay iyo waxyaabaha challenges-ka ka yimid waa meel aynu weakness-keena ka sixi karno strengths-keena ka sii xoojin karno waa meel loo baahnaa ama madal loo baahnaa hore in loo qabto maantana waxaanu filayaa inaynu gaadhnay heelkii aynu aqoonta ku salayn lahay wax kasta oo aynu qabanayno shirkadahan waxay shirkadda Telesom ka mid tahay shirkadaha ugu ballaaran waddanka horumarkiisa marka private sector-ka laga hadlayo qayb libaax ka qaatay ha noqoto isgaarsiinta oo ah waxyaabaha ugu mudan horumar marka laga hadlayo ma laga hadlayo economical infrastructure-ka marka laga hadlayo kaabayaasha dhaqaalaha isgaarsiinta koobay ka tahay waxay fudusaa dhaqaalaha waxay fudusaa trade-ka waxay fudusaa information-ka iyo wixii la xiriira waxaad ogtahay maanta caalamku halku marayo iyo stage-ku taagan yahay oo ah meel information-ku yahay ama manage information system-ku yahay meelaha ugu mudan ee waddan markuu horumar higsanayo ay tahay inuu kow ka dhigo ama priority koowaad wuxuu aan dalka keenay sustainable technology isgaarsiineed oo la isku halayn karo oo aan shalay jirin oo maanta qof kasta oo caalamiya oo aan dalkeena aqoonin si sahlan hadduu Google gareeyo Soomaaliland wax allaale macluumaad la xiriirsan saalim kale halku awal isagoo shaki qaba wadankii aan garanayn macluumaad aan ka haysan uu iman jiray maanta wasaaradda kasta waxay leedahay database ama system u fududeynaya inay adduunyada meel kasta ka mid ah la xiriiri karto inaguna adduunyada sidoo kalena ay si sariin la soo xidhi karaan waxa suura geliyay waa shirkadda shiraaga kale ha jiraan laakiin nagu waxaanu kaga duwanaa shiraaga kale waxaanu nahay ciddii sustainability-ga keenta in sii jiritaanka waxaa la abuuri karaa laakiin waxaas inuu sii jiro ayaa muhiima shirkadda wax kaloo ay horumarka maanta aynu kaga qayb qaadanaa inaanu social sector-ka laftigiisa aan investment ku samayno aanu adeegyada bulshada oonu wadno barnaamijyo kala duwan oo aanu ku taageerno bulshadeeda sida mashruuca macaanka carruurta diabetic qabta oo hayno 250 carruur ah oo danyar ah oo aan awoodin inay dawo iibsadaan xanuunka laftigiisana ay la macaamili karaan
therefore waxaanu samaynay shirkad ahaan mashruuc ka turjumaya inaan bulshadeedii dib wax ugu celinno isla markaana aanu bulshada intaa leege culayska intaa leeg saaran yahay aanu ka dulqaadno oo shirkadda dawadooda barista cudurrada iyo la socodkoodaba ay ka qayb qaato shirkadda wadooyinka dalka qayb badan bay ka qaadatay way dhistaa waxa kale shirkaddu ay qabataa mashaariic kala duwan oo ay ka mid tahay mashaariicda sida mashruuca jeelka oo kale oo maxaabista wax lagu baro marka waxaad arki kartaa doorka ballaaran ee shirkadda horumarka dalka ay kaga jirto adeegyadana ka mid ah isgaarsiineed oo kala duwan oo u dhigma aan ahayn in labada qof ama labada dadku wada hadlaan laakiin shirkadda maanta waxay ku dadaalaysaa sidii ay adeegyada horumarka la jaan qaadi lahaa ay keento sida cloud oo kale adeeg leedah oo qof kastoo businessmani waa xafiiskiisa isagu meel kasta jooga ka maamulan karo halkuu markii hore ama xafiis inuu taga ahayd ama goobtiisa wixii joogun ka qaban karay waxaa kaloo ka mid ah adeegga la yidhaahdo mobile waxaan la yidhaahdo ila soco oo isla sheegaya in lagu maamuli karo gaadiidka maadaama dhaqaaleheenna ballaadhanayo markastoo sii ballaadhana ay challenges siban karaan marka waxaan odhan karnaa shirkaddu waxay u socotaa ama qayb weyn ka tahay in korqaadista horumarka iyo hiigsiga dalka guud ahaaniyo astaan cable t v waa shirkad bixisa adeeg telefishan oo aad tayadiisa u sarreyso rasiifarka astaan cable t v hargeysa marka aad joogto aad iibsato waxa aad helaysaa 125 channel oo HD ah waxa hadda aanu samaynay oo kowdii bisha koowaad oo 10ka bisha tobnaad ku dhan offer ahaa ama qiimo dhimis ahayd inaan rasiifarkii $28 ahaa aanu ka daynay 10 oo $18 uu noqday sidoo kale ay ku dheer tahay xidhitaankii oo bilaasha iyo bil firiya oo qofku uu ku helaya taasi badhingan awgii waxa aanu ku darnay inay adeegaasi waxay ahayd maanta inuu dhammaado waxa aanu ku darnay ilaa iyo 3 cisho uu soconayo marka xarumaha kale ee iibku sidii tooska ahayd ee caadiga ahayd buu uga soconaya halkan waxa ay ka heli karaan dadku qiimo dhimistii oo 3 cisho sii socon doonta maxaad kaga duwantihiin waxa jira TV badan oo iyaguna qalabkan aad iibinaysan iibiya bulshadana deewayna wax cusub u sheegtaan oo kaga duwantihiin maxaa kaga duwantihiin marka TV ugu horeyn astaan TV waxa halku dhig ku ah sida aad halkanba ka arkaysaan tayadan astaan u nahay dadku iyaga kolley ay tahay inay kala saaraan laakiin annagu waxa aanu isleenahay ugu horeyn inaan tayo aan la dheernahay waxyaalaha u gaarka astaan TV waxa kamid ah 125 channel 8 kamid ah annaga soo saarna samayna waxa laga soo deynayo iyo muuqaalada ka soo baxaya iyo movieska 8 channel waxa ay astaan hidaaya wacdi diiniya ayaa ka baxa astaan ubad barnaamijyo caruurta ayaa ka baxa channelkaas oo kale waxaan malaynayaa waa kii ugu horeeyay ee noociisa ah barnaamijyo TV oo caruureed way jiraan laakiin channel u gaara sida uu dhameystiran yahay caruurta oo waxyaalaha la dheernahay telefishinada kale haddii aan wax yar ka taabto warshadayda horta ugu horeyn waxaa la aasaasay sanadii 2004 oo wax soo saarkeedii ugu horeeyay soo baxayna wuxuu ahaa sharaabka oo inta badan bulshooyinta reer Soomaaliland sharaabkan ku caanay waayo marka la soo qaaday shirkadda sharaabkayga lagu xasuustaa halkan horteeda miiska waxay noo yaala saddex product warshadu 4 product oo kala duwan bay soo saartaa 4 wax soo saaro kala duwan bay soo saartaa wax soo saarka koowaad waxa weeyaan sharaabku qaybihiisa kala duwan weeyaan ananaskii maangihii liintii fimtoogii mushakalkii marka mid walba wuxuu leeyahay package kala duwan sida arkayso kaasi waa kii 2.7 waxa weeyaan 2700 kilo oo gram weeyaan marka kan oo kale waa 25 gram kan oo kale waxa weeyaan 900 gram kan kale ku sixiga waa 450 gram marka sharaabku qaybaha kala duwan buu leeyahay waana qaybtii sectionkii ugu horeeyay lagu bilaabay waxa kale ku xiga halkan oo aragtaan waa buff snacky ama chipsta waxa Soomaalidu u taqaano wuxuu leeyahay labadan qaybood chilidii oo basbaas kullo kala yar hahle oo dadku aad u jecel yihiin iyo mid dhadhankii chicken kale waxa kale oo soo saddexeeya sectionkii biyaha oo aad xaggan arkaysaan oo qaybihii kala duwanaa leh waxa ugu muhiimsan bulshada reer Soomaaliland ugu bushaareenan maanta ay ku soo biiray wax soo saarkayga waxa weeyaan caagada 5 litir aynu halka ku hayno waxa kale oo inaga maqan miiskeena imika ka muuqanin lowskii labadiisii nooc xalaawada lowskii macmacaanka lahaa iyo lowskii kale dhilaa dadka xafiisyada meelaha jooga ay isticmaali jireen marka inta weeyaan qorsheena ma yahay in sharaab badan oo warshadaysan dibadda laga keenay baa jira qorsheenu ma yahay in laga maarmo sharaabka dibadda oo idinku wadanka aas ku filaasha ka sameeysan aad baan ugu haweenahay aad baan u jeclahay inaan arrintaas sameeyno
kolley sharaabiyada dibadda laga keenay nala tartama suuqa Soomaaliland nagula tartama waxay ka yimaadaan wadamo inaga fac waaweyn oo inaga dhaqaale badan oo dawladoodu ay daba taagan tahay iyadii ay suuq u raadinayso marka insha Allah bidna kariim mustaqbalka dhow hadii la inaga farsameeyo sharaabka dibadda inooga imanaya anaguna waan isdiyaarinayna qalabkii mashiinada aan balsanayna shaqaale badan baan sameeynaa si aan suuqii localka ah Soomaaliland aan u ka fargareyno wixii access dheeraad aan dibadda ugu iibgeyn karno insha Allah bidna kariim ayaan ku soo gudbinay barnaamijkii gaarkaan idinka diyaarinay carwo ganacsiyeed qaybka shirka caalamiga ee wasaaradda arrimaha dibadda dhinaca sawirka waxaa qaaday cabdi cumar jibriil salsal barnaamijka waxaa la socodsiinaya anigoo xasan faarax khamaane barnaamijka mid lamid intaan kulmi doono waxaad ilaahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu